Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waan idin salaamay asxaabtayda idil ahaantiinba meel walbo aad caalamka ka joogtaan. waa anigoo xikama nuux. Maanta waxaan warbixin kooban ka siinaa Baydhabo Janaa'i. Fadlan kanaalka haddaad horey usoo biro subscribe noo saara gambalaalkana furo. Mahadsanid. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa lagu tiriyaa magaalooyinka ugu taariikhda dheer ee dalka. Waxaa sidoo kale Baydhabo Janaa'i ka mid tahay goobaha ugu kheyraadka badan ee dalka. Sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ugu wax soo saarka iyo nimcada badan ee dhulka Soomaaliyeed. Baydhabo Janaa'i, taasi oo ah Baydhabo sababta loogu magac daray jannada. Berisamaadkii, Baydhabo Janaa'i waxay ahayd magaalo wax walba loo soo doonto, oo dadka Soomaaliyeed ay u soo guuraan marka la gaaro xilliyada roobka. Balse Baydhabo maxaa iska beddelay berisamaadkii iyo hadda? Inkastoo guud ahaan uu galay dalka isbeddel dhinacyo badan, waxa ay ka mid ahayd Baydhabo meelaha isbeddelada dalka ay si aad ah u saameeyeen. Ka sokow dagaaladii iyo colaadihii uu dalka soo maray, oo dadka iyo dalka Soomaaliyeedba saameyn xooggan uu ku yeeshay. Waxaa sidoo kale barbar socday abaaro isdaba joog ahaa oo soo noqnoqday. Waxaa abaarahaasi si aad ah u beddeleen Baydhabo Janaa'i magaalo ahaan, muuqaal ahaan, bulsho ahaan iyo barwaaqo ahaan. Assalaamu waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal meel walbo aad caalamka ka joogtaan, waan idin salaamay. Intaasina waxay ahayd hoogaha yar oo warbixin aan ka diyaarinay Baydhabo Janaa'i. Inta kalena waan soo wadnaa insha Allah. Hore haddaadan u saarin, fadlan ku soo biir kanaalkayga, subscribe na saara, la soco muuqaal walbo aan soo gelino insha Allah. Waxaanu ballanaa daawashada muuqaalada aan soo gelino.